لمن إلهي أن نقدر صاحب القرآن وحال ولي في محمد صلى الله عليه وسلم قلت صاحب القرآن مالت القيامة جنة القرآن كآخر جنة لنا كرر درجات كذا وحال دقيسا وجنة كدقيسا آيات وقدم بيسود آخر السر ما شيء كأجل ما تجنة لنا كدقيسا والفيل منزلة إلهي سبحانه وتعالى هاي ساسا إلهي كلامي ذكر القرآن آخر ساسو كلامي الدنيا أنا الشيخ محمد أنا الشيخين ابن أبي أبزة يوم آخر خير الله سيد جزاه الله خير مرت الدنيا آخر وانية وحاسة يقول مكرمة والله ما موصي إلهي أكتب سلقة ما موصي لكن سيد محمد نور آخر أنه واحد بقود رأي أنك قفك قارئ القرآن كدرجلين لقد جوا مات قرآن كدرجلين لقد جوا عنو مركي قرآن الله دريا isagoo dhereerkiisa qaba laga yaabay inuu soo rumaysan afkiisa soo cadayaan dharka kale ugu liita xiran ayaa la leeyahay orada quraan dugsiga orada quraanka laakiin isuulka markii loo dilaa maxaa la sameeyaa dharka waa laga kontaroolaa hay'adaha laga kontaroolaa loo baanasheeyaa tinta laga kontaroolaa xagee marka aan walaal ku arkayna haddii ilaahay quraankiisa asaas u leeyahay sheekh ayno akhri jazaahu allahu khayran وحين إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع بها آخرين إلهي قرآن كان ضدنا سروا وقالا فروا وقالا ضدنا هوصوا قدقا ضدك كلنا بوايد سيدا ما تعطل لي ذا يولي ذا قرآن كي بروا يشرف بوايد ضدك كلنا مانا إلهي سروا وقالا أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه أجمعين أما بعد marka ugu horeysa waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan marti sharafta macallimiinta waalidiinta ardada kuwa qalin jabinaya iyo kuwa kaleeto iyo intii kale oo laga soo qayb gashay xafladan qiimaha weyn inoola ee aan maanta ku maamuusayno inaan shahaado ku guddoonsiino ardayda ka qalin jabinaysa quraanka ay gudbiyeen lagu guddoonsiin doono insha Allah shahaadooyinkii oo ay ugu tala galeen macallimiinta halkan maamuuska iyo maamulka ka ah madrasada iqra insha Allah hadii aan u gudo galo ujeedada aan halkan u soo istaagay ee ugu sharfay ugu horeyn waxa oo dhan waxa iska leh Allah subhanahu wa ta'ala ee aan noo suurtageliyay inaan maanta anagoo faraxsan caafimaad qabna rajo weyn iyo muddooyin badan ay aan ku taameynay inay xafladan inoo qabsoonto suurageliyay in halkan aan isugu imaano anagoo waliba u ixtifaalayna u xafladaynayna u dabaaldegayna habkii aan ugu muujinayna weynaynta qur'aanka kariimka ee aan weynaynayno ee ardada ee inoogu qalin jabinaysa qur'aanka aan halkan xafladda aan ku dhiganay shahaadada ku guddoonsiinayna anagana aan ugula faraxsannahay waxaan halkan rabaa inaan ka jeediyo laba kelimadaha ugu weyn ee hadda ugu horeysa raba inaan halkan ka jeediyo anoo ku hadlayo magaca waalidiinta ayaa waxa ay tahay laba arrinta koowaad ayaa waxay noqonaysaa doorka u dhaxeeya amba xiriirka ka dhaxeeya waalidiinta iyo ardayda sida quruxda u fadhisaan kulley wax lagu kulmo ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii ayaa u qiimo badan الحمد لله رب العالمين هذا إلهي سبحانه وتعالى أفضل هذا إلهي سبحانه وتعالى هذا الكيسان أقيم بدن ذاتكنا مع أقيم بدن قفك إلهي سبحانه وتعالى أولاد سيو أولاد إلهي تبارك وتعالى وكما نستهدنا القرآن كأولاد إفرتان وقيم